siirada suubanaha sallallahu alayhi wa sallam. qaybta 12aad hijradii ugu horeysay ee xabashada loo hijrooday. sidaan soo sheegnaba dhibkii Quraysh ku haysay dadkii rumeeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee qaatay caqiidada islaamka ayaa marba markii ka dambeysay aad u sii siyaadayay ilaa la gaarsiiyay asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam heer aad u adag oo ay xamili waayeen inay ku noolaadaan magaaladii Makka oo ay ku dhasheen tolkoodana degnaa iyadoo waxa lagula dagaalamayna ay ahaayeen caqiidada islaamka oo ay qaateen iyo iyagoo ka baxay wixii qabiilkoodu ku dhex jiray ee shirkiga iyo caadooyinka foosho xun ahaa. xaaladdu markay halkaasi marayso ayaa Allah subxaanahu wa ta'ala sheegay muslimiintii inuu dhulku alla waasic yahay. rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu arkay heerka adag ee asxaabtiisa marayso iyo dhibaatooyinka daran ee soo gaaraya dadkii islaamkii qaadanaya siiba kuwoodii masaakiinta ahaa ayuu sheegay inay u hijroodaan dhulka xabashida oo ka talinayay boqor caadil ah oo si fiican u haysta diintii Nabi Ciise magaciisana la dhihi jiray Najaashi. sidaa darteed ayaa waxaa baxay bishii Rajab ee sanadkii 5aad kooxdii ugu horeysay oo u hijrootay xabashida. kooxdaas oo ka koobneed 12 rag iyo 4 dumar ah waxaa hogaaminayay Cusmaan bin Affaan oo ay la socotay xaaskiisii Ruqayya oo ahayd gabadhii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. waxay kooxdaasi ku baxday si qarsoodi ah iyagoo baxaya habeennimo maxaa yeelay sid cadaan ah uma bixi karaan. gaaladii Quraysheed markay ogaadeen in kooxdaasi baxday waxay ka daba direen ciidan. nasiib wanaag kooxdii muslimiinta ahayd waxay isla markiiba tageen badii ilaahna wuxuu ugu sahlay doonyo ijaar ah oo meesha marayay waxayna tageen dhulka xabashida iyagoo nabad qaba. ciidankii gaalada soo dirtayna waxay tageen badii oo cidla ah waxayna ku soo laabteen Makka. siirada suubanaha waa barnaamij maalinle ah oo aan aalaaba ku soo bandhigi doono siirada nebiga sallallahu alayhi wasallam. kala soco maalmaha Ramadaanka 4 galabnimo Rashka Production YouTube iyo anigoo ah Ahmed Jubba.